maalintii jimcihii ee ku beegneed 4 bishan 12 waxaa magaalada Istanbul ka dhaqaaqay tareenkii u horreeyay noociisa oo xamuul qaada kuna wajahan dalka Shiinaha waxaana iskala dawladda Turkiga waa mid ka mid ah horumarka casriga ee ay gaartay xukuumadda Ankara isku xirka ganacsi ee dunida ay la leedahayna sare u qaaday safarka tareenkan ayuu qorshuhu yahay inuu socdo 12 maalmood oo xiriir ah wuxuu ku soo gunaanadi doonaa safarkiisa magaalada Jian ee dalka Shiinaha wuxuu sii mari doonaa inta uu ku guda jiro safartan 5 wadan iyo 2 badood oo dusha sare uu ka mari doono wuxuu isku xiri doonaa 2 qaaradood dherarka ama masaafada uu soconayaana waa 8693 kilomitir una kala qaybsan 2323 Turkiga gudihiisa 220 Georgia gudaheeda 430 kilomitir oo Azerbaijan gudaheeda uu ku marayo 420 badda lagu magacaabo Caspian Sea uu dul marayo 3200 kilomitir oo Pakistan ugu dambeynna waa 2100 oo Shiinaha gudihiisa tareenka ayaa mari doona magaalooyin badan oo kamid ah Turkiga oo ay ku jirto caasimadda dalkaas ee Ankara wuxuu qorshuhu yahay inuu ku nasto oo ku istaago Georgia kadibna uu sii maro Azerbaijan iyo Pakistan inta uusan gaarin gudaha Shiinaha tareenka wuxuu siday markan shixnad ganacsi oo kaliya bishii 11aad ee sanadkiina dhaafay 2019 ayay ahayd markii xukuumadda Ankara ay soo dhaweysay tareenka yimid Shiinaha kaasoo ahaa tareenkii isku maraya wadamo badan oo ka tirsan dalalka qaaradda Yurub Shiinuhu wuxuu ku riyoonayay inuu dib u soo ceshado wadadii xiriirta taasoo qarniyo ahayd wadada ugu muhiimsan ee iskaga kala goosho ganacsiga Shiinaha iyo adduunkuba haddii aynu dib u milicsano taariikhda wadadan waxaa la sheegaa in 3000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga ay dadka Shiinuhu bilaabeen inay samaystaan xiriirta waxayna ku suuq geyn jireen adduunka daafihiisa iyagoo sii mari jiray badanaa dalalka adduunka gaar ahaan qaaradaha Aasiya, Yurub iyo Afrika waxay markii dambe isku bedeshay wadadii uu ku socon jiray ganacsiga adduunku waxay ka bilaabataa waqooyiga Shiinaha iyadoo isku xirta Yurub, Aasiya iyo Afrika waxaana magaceeda Ingiriisi ahaan loogu yaraa Silk Road oo uu bixiyay juqraafiista Jarmal u dhashay sanadkii 1877 Shiinuhu wuxuu bilaabay inuu riyada dhab u bedelo uuna soo nooleeyo wadadii xiriirta 9-maadkii qarnigii tagay markii uu hirgeliyay wado isku xiraysa Shiinaha, Pakistan, Mongolia, Ruushka iyo Jarmalka dhamaadkii sanadkii 2013 ayuu madaxweynaha Shiinuhu ku dhawaaqay mashruuc ugu magac daray wadada xiriirta cusub mashruucan ayuu shaaciyay in laga hirgelin doono 66 dal oo dunida ku yaal iskuna xiri doono Shiinaha iyo qaaradaha dunida Shiinaha ayaa dhaqaale badan ku bixiyay hirgelinta wadadan iskoo maalgashi ku sameeya kaabayaasha dhaqaale wadooyinka tareenada iyo wadooyinka waaweyn ee dalalka ay marayso wadadan si uu hirgalo mashruuca Shiinuhu mashruucan wuxuu ka koobnaa 2 waji wado badeed oo ay doonayaan Shiinuhu in alaabta Shiinaha laga keeno loo suuq geeyo dalalka dhaca xeebaha iyo wado dhuleed isku xiri doonta Shiinaha ilaa Yurub laga bilaabo xilligii ku dhawaaqay madaxweynuhu Shiinuhu wadadan xiriirta cusub wuxuu Shiinuhu maalgashaday mashaariic badan kuwaas oo ku kacay in ka badan 80 bilyan oo euro waxayna bangiyada Shiinuhu bixiyeen deyn lagu qiyaasay 175 bilyan ilaa 300 oo bilyan oo euro ilaa 126 wadan iyo in ku dhow 30 urur caalamiyeed ayaa la saxiixday Shiinaha heshiisyo mashruuc oo wadadan darteeda dadka dhaqaalaha oo dorasa qaybtood ayaa u arkay in Shiinuhu wado qaab gumaysi cusub waxay ku dhaliilayaan inuu wadamo badan uu deymo siiyay kadibna ay iska gudi waayeen oo uu dekadihii wadooyin tareeno iyo dhulba la wareegay wadamada qaybtoodna uu heshiis huma ku jiro kala wareegay dekada waaweyn iyo garoomo diyaaradeed qayb ayaa u aragtay inuu dunida isku furayo ganacsiguna uu xor noqonayo ayna sahlanaan doonto inay wadamo badan wax isweydaarsadaan halkaasna uu koboc dhaqaale iyo yidiilo horumar ka yimaado